ها بمغلسة abti aadan kuu maqlaa اوكي dadku marka xogaa waxa u maleysaa dadka horta waa kuwan weydiyaarsan yihiin hadda yarkaan aad u jeedo fiiri gacantiisa waa aragtaasa ها yarkaas muxuu ahaa maxaa ku dhacay yarkaas ayaga dhan waxaan dhan waa la wada dilaa soo ma jeedin dhiigii baa ilaahay ku yaala hadda waa kan mar dhawaa hadda la garaacay asigaa kula hadlaya waa kan dhegeyso igu dhiib baro hadal halo magaca walaal magaca ii sheeg cabdinajiib maxamed walaal cabdinajiib sidee lagu helay maxaa ku daaray meeqa sana joogta halkaas walaal sanad baa jooga reerka waxba iimahaya walaal meesha ku dhigto cuntada ima siiyo bir baa lila dhacaa haddaa arkigaad nolosha ku jira nolosha dhan baa nicleed walaal wejigaa ku aadi kaamirada xoogaa mugdiga ka fogow iftiinka baltag miya aragtaa ها magacaaga ii sheeg والله عبد النجيب محمد والله بلا تلا توم على عنت لي مثلا عنت معنا انا ساسا بلا صدع كركي كثير ولا بربرنا هاي waa garta goormee timid adiga libiya goormee timid يا ولد goormee libiya timid سديد سند باجر ليبيا sanadaa joogtaa من اللي سيدنا بلا ما ننكست الا سيدعا waa hagaag waa mahadsan tahay yaa kaloo jooga meesha dadkan oo dadka kale bal waxaan rabaa wejiyadooda iyo dumarka oo kale waxay hal mar midaan ku tusaa oo yani carabta inay dhagax dul saareen ee dhaheen yaan laga qaadin ilaa yani maaragtaa berito subaxaan ka imaan ma garatay maxaa dhagax loo saaray wiilkan waaye waxay dhaheen muddo sanadoo nala joogaa ilaa hadda lacagta nagama bixinin anagana qofka ma qaadi karno yani maaragtaa lagama qaadi karno ilaa iyo ayaga ay ka yimaadaan ama teleefon ay kasoo diraan ay dhahaan yani dhagaxa laga qaado wiilka soomaali ma la hadli karaa hadduu soomaali yahay ha waa la hadli kartaa la hadal halo xoogaa ka hor leexi ninka iftiinka wejigiisa rabaa walaal maxaa dhagax lagu dul saaray walaal sideed kun dollar liga rabaa ilkii baa liiga riday gacan baa awrka ahaa dhagax baa lay saaray aad baa u dilnahay meeshan waxaan joogaa muddo 11 bilood ah wakaasa waa soomanahay ilaa hadda ma afurin waka biicad xataa ma cabin marwalba waana la dilaa ilkaha saan ee waana la dilaa ilkiiba koosa samarti kariya sooqayn subxaan allah samarti waa mahadsan tahay wakaasa ilaa haddana ma afurin waana soomnahay maxaa imise maalmo dhagax ku saaraya marka يا ولد dhagax meeqa maalmo ku saaraya dhagaxaas dhagaxa saddex maalmo buu saaray waa hagaag igu dhiib yarka niyo adaa u dhexeeya marka wiilkaas dhagax ma laga dejin karaa lacagtiisa waxaan isku dayaynaa bal in la soo fududeeyo dhagax ma laga dejin karaa والله أبتي هرسني وأنيكا يعني ماشى إسكاله أنا هرس أمر كيسان سمينا وحكة بدل ما سميكر adiga u dhexeeya haddii aad la hadasho aad tiraahdo lacagtaasi waa la bixinaya waa la damiinanaya anaa kula hadlaya lacagta anaa damiininaya dhagax ma laga dejin karaa ninkaas haddii aniga aan saas ku dhaho oo aan dhaho lacagtiisa waa la bixinaa dhagaxa ka deji oo aniga aan damiinto yani xilligii muddada la qabtay waqtiga la qabtay la dhiibi waayo lacagta aniga dhulka jiifa ma garatay ilaa meeqa maalin waay meeqa maalin lagu haddii aan nahno isbuucan lacagtaas lagu bixinaya imis way lacagta والله هذا عنو قال سديت كنو دولار على قربا مدة سنة كنا ونوجوجا ما قرتي waata adi ma damiinan kartaa dad badanna oo Soomaaliyeedna way ku daawanayaan dadka meeshan fadhiyo dhan haatan ii muuqda dhamaantoodii ma Soomaali ba waxaan dhan wax kulli waa Soomaaliyeed kulli wax yani aan Soomaali ahayn kuma jiro kulli waxa Soomaali ahayn kuma jiro aniga macnaha hadda yani barnaamijka adiga ku diyaari in dadka aniga yani wixii raaxo lagu sameeyo barnaamijka inaan sameeyo hadii la ogaado yani ma aragta aniga bas ay dhamaanaysaa انت marka habeenka xerada kaliya joogo yani maarata waxaan rabo idin sameey karaa laakiin maalinkii ma awoodo in waxyaabaha qaar ay idin sameeyo
canugan maalinka dhagax markuu saa u saaran yahay habeenkii markay carabta iga tagaan anaa ka dejiyo markay imaanayaan ama albaabka ay soo gargaraacaan oo ama gaarigooda aan maqlo haddana waan soo seexiyaa sidiisaan dhagax u saaraa ma garatay وهجاج hadda ma kula joogaan liibiyaanku ma joogaan aan filaya xarunta wax hadda yani liibiyaan ila jooga male hadda canuga saan ay tahay dhagaxa waa ka soo dejiyey waa kan hadda waa keenay soo ma jeedid haddii hadda gaarigooda uu soo yeero gaarigooda hadduu soo yeero waan qabanaa meeshiisaan ku celinaa dhagaxiisaan ka dul saaraa si yani maaragta hadhow yani aysan aniga ii qabsanin wiilkan hooyadiis magaciis aabihiisa magaciis bal hooyada magaceed siraad farax raage xagee ka timid walaal magacaaga igu celi magaaladay ka timid adi magaaladay kasoo tahriibta walaal waa hagaag waxaad ii sheegtaa imise maalin ayaad ku jirtaa xeradan adiga wax lacag ah oo lagaa qaatay ma jirtaa aniga hore waxaa laga soo qaaday 5,500 hadda xeradan waxaan joogaa 8 bishii 8 baa soo galay Soomaali garan haye bishii 8 hadda muddo 12 bilood ayaa laga joogaa hadda waxaa laga rabaa 8,000 laga rabaa 3 maalmood baa adirtaan dhagaxan uu saaran yahay Soomaali garan waa gartay Ramadan ku bilaabay ilaa adirtaan xawna lama sii wada dilaa afar la taga sacwaan dilaa liibiyaan baa soo gala ulbana lagu garaacay ilkayga waa liiga riday nabraan badan baa ugu yaalo fiilooyin baa lagu garaacay koronta xataa lagu qabtaa wallahi Soomaali garan waa maasan tahay igu celi ninka kale idin dhaxeeya liibiyaanka iyo oo igu dhib walaal waxaan doonayaa inaan la hadlo haday dumar ku jiraan gabdho Soomaaliyeed miyaa ku jira dumarkii aaway dumarka way joogaan ma garatay dumarka way joogaan ayagana meel gooni ah lagu haya xataa looma ogola in loo tago laakiin ayagana habeen dambe isku daya in ay yani maaragta waardi adagan banaanka dhigana markaan waardi adag banaanka dhigto oo yani maaragta aan gabdhaha ayagana programkooda ku soo saxaado ilaahay waxa ii muuqda anaga meesha cabsi ku joogno وهجاج dad badan is weydiinaya adiga sida arintan ay kugu saamaxday inaad barnaamijkan aad fududeyso oo adigoo naftirkaaga u dhaxeeya oo dadka Soomaaliyeed adigoo halkaasi jooga sidee kugu soo gashay live kan inaad isiiso oo aad dadkan Soomaaliyeed aad arintan ku saacido horta xerada waxay tahay abti xero yani liibiyaanka way ka tagaan subaxii hore habeenkii hore way iga tagaan subaxii ay yimaadaan waxaad garatay ma yani subax hore markay yimaadaan ilaa iyo habeenkii ay la joogaan habeenkii markay ani iyo wiil kale Soomaali ah iyo qolo kale ayagana oo Nigeria iyo Jazul Qamar isugu jiro meesha xerada waardi ahaan kor ka hayo dadka Soomaalida aniga hayo oo yani wax walba yani ayaga ay rabaan ama yani maaragta liga wareystaa programkan inaan sameeyo hadayaan ku tashtay waayo aniga aad iyo aad u jeclaa in Soomaalida inta ku dhibaataysan yani maaragta la saacideeyo maanta hadday jiraan dad saacideynaya maaragtay aniga ogol habeen walba programka rabtaan inaan idin sameeyo oo wax lagu qaban karo aad qabataan وهجاج aad u mahadsan tahay inaad ku dadaashid mar walba dadkan Soomaaliyeed inaad dadka la garaacayo iyo dadkan kale dhibaataysan dhagaxaanta la dul saarayo inaad isku dayso inaad fududeyso dad badan ku daawanayo waxaan rajaynaynaa in baahiyahooda ay markaasi qof walba bulshada Soomaaliyeed ay wax ka qaban doonto rajaynaynaa yaa kale dhiban oo muddo jooga xeradan aad na tusi kartaa waxa jiro dad fara badan oo muddo la laayahay jiro oo nolol iyo geeri lagu haynin oo halkan jooga horta wallahi billahi anugan oo kale markaan kaaga waramo anugan wuxuu joogaa muddo yani maaragta sanadii 3 bilood ilaa hadda asagoo wali ma arag telefoon garaacanayo subax walbana telefoon garaaca lagu dilaa mar waxaa jirto koronto dadka loo adeegsado anaa bari iyadana video oo yani qarsoodiga kaaga soo qaadayo dhibaatooyinka badan meesha lagu hayo anaa video qarsoon kaaga soo qaadayo kama awood inaan video duubo laakiin habeenkii waxyaabaha qaar oo ku sameeyo bal ii dhib aan la hadlay isagaan doonaya inaan la hadlo yani
ولا المقعة هالو ها مقعة هلا مر على عوال مر على عوال لا داول مش maxaan joogaa sanadka ku dhawaad hadda waan joogaa maalin bir alle la dhaca telefoon waxaan garaacdana male ehelkaaga xagee joogaan adi magaaladee ka timid markii hore waxaan ka imaaday Ethiopia ka xagee guday bal ka waran adiga noloshaada haatan iga sheekay maxaad cidi u wici weyday muddaad halkaani joogtaa cidi way ku walwalaysaa meesha hadda sanadii 3 bilood waan joogaa meesha maalintaana biraal ila dhaca hadda waxaan cunto ma cuno haddii habeenba waa la garaaca marka waa sidaas niyow magacaagu saddexan ii sheeg nuur cali cawaale nuur cali cawaale marka maxaa lagu xijiyay lacagta maxaa lagu xijinayaa 8,000 iyo 300 lacag dhan dollar Ethiopia ilaa iyo Libya imisa ku timid Ethiopia ilaa Libya imisa ku timada ha ma ogi taa ma ogi soo adiga lacagta ma bixin waxba ma bixin hal riyaal ma bixin waa iska soo lugays intaas ma Suudaan lugaad ku tagtay inta waa soo socdoon waa gartay waa tahay waa hagaag marka 8,000 haatan laga rabaa soo saacadna jirta ya maxaad kaamirada wajiga ku aadi haye maxay tiri marka hadda maxaad dalbanaysaa ummadda Soomaaliyeed iyo dadkaaga iyo ehelkaaga iyo ummadda Soomaaliyeed oo idil maxaad ka dalbanaysaa waxaan ka dalbanayaa in meeshan ummadda islaamka ee meesha ku wada jirto dhammaanteed in laga wada saaraan ka dalbanayaa waa tahay waa maasanta ilaahay idin sabir waa hagaag waa tahay abti waa hagaag ha maxaa kale ku qabtaa waxaad ii sheegtaa gabadhii oo shalay videogeeda la soo dhigay la garaacay lacagteeda waa la bixiyay ma la sii daayay waa la bixiyay ha dhamaantooda gabadhaas waa la sii daayay wiilashii kalena labada wiil kalena labada wiil kale ma la sii daayay lagu dhigan yahay waxyar ka hor ayaga dhan way madluunsan yihiin waxyar ka hor waxaa la qaaday dad oo yani maaragtaa Yurub aaday dhammaantood marka niyo waxay leeyihiin maanta dhan ayaga dhan way faraxsan yihiin anaa waxaan dhahnay oo dad saasa ila soo xiriiray dadkaas inay idin saacidayaan rabaan anigana oo ku faraxsanahay maanta intaas idin sameeyay dhammaantooda sidii hal meel isugu wada keenay wili waxaan dhahay yani maaragtaa cidii bari markii carabta timaado ku sheegto in aniga aan video duubay haddaba ayaga u taalaa dhammaantood waxaasna waa kala hadlay sidaas darteed aniga arrintan u sameeyay waa hagaag waa mahadsan tahay gabadhii waa baxday hadda gabadhii waa baxday oo lacagta waa laga baxshay gabar kale jirtay oo iyadana oo hooyadeeda ifa joogto iyadana ma la sii daayay maya gabadhaas anaga ma ahan waa xeradana maan xero kale waa iyadana laakiin waan raadi karnaa hadduu ilaa yidhaa laakiin gabadhii kale hadda lacagteeda laga bixiyay oo lacagteeda weli oo yani maaragta aan lasoo qaadinaa joogto laakiin iyada laftirteeda oo kula hadalsii karaa hadda gudaha isaga jirtaa way raaxaysanaysaa hal su'aalaan rabaa dadkaas inaad ii weydiiso inay ma doonayaan waddankooda inay dib ugu noqdaan in dawladda Soomaaliyeed ee dalkooda ay ku celiso ma rabaan bal su'aashaas ii weydii hal mar سؤال ما دونيسان إن يعني ما ركتا ماشان لقد صاروا أو يعني دب ودنك إني لو علي أكون مادي علنا يا أولاد
mid ka mid ah migu dhiibi kartaa wiilasha ها هذا وكوكو ديبي كرا وكوكو ديبي كرا الو xagee ka timid walaal الو xagee ka timid walaal Ethiopian kiimaada walaal meesha sanad baan joogaa walaal haddii aad heli kartaan waddankaana inagu celisaa walaal waan rabnaa waan rafaadnay waan dhimanay walbaan bir bay nagu tumaan walaalo haddaad wax noo qaban kartaan dad islaam haddaad tihiin walaalo meesha naga soo waxeeya walaalo waan dhimanay bir bay nagu direen waxba ma cunno maalin alla keena qoraada nagu direen qoraa xadadka yaale maanta xadadka meesha yaale habeenka ma saacan karo feeraha xanuunaya walaalo waan doonaynaa inaan ugu dabanka annaga ku noqono waan doonaynaa haddaad dad islaam tihiin meesha naga soo furto allo dhibanay ma noolin waa mahadsantahay walaal waa mahadsantahay ati midaada kale hadda waxaan banaanka usoo bixiyey gabdhihii banaanka usoo bixiyey waa codsaday in lasoo bixiyo gabadhaan hadda ujeedo muddo waxay joogtaa yani ilaa meesha ay ku laga beesho ilaa waxay nala joogtaa muddo yani maaragtaa sanad iyo 6 bilood marka yani maaragtaa xataa ma istaagi karto way gariiraysaa waxaa kaloo nala joogto iyada maamadan nala joogto aa ujeedo gabadhana waatan hadda gabdhihii ayaga dhan banaankan usoo saaray maamada marka iyada maamada la hadal adiga macnaha wareersan haye maamada igu dhiib نازل عادي هذا اسكدك وجهك دب ملا كدا وجهي ضعف عادي ماما لها لو ربا لها السلام عليكم وعليكم السلام ماما ساتها oo fiican ay meeshan ku dhawaataysan anagoo cayla ah oo meeshan maaragtay ilaahay amarkiis baan ku nimidnay hadana noo sii quraana lama siiyo waan ku dhawaataysan aad dhibaatada ugu xun baan ku jirnaa hadii aad wax noo qaban kartaa noo qabta hooyo goormeeti midalkan goormeeti midalkan waxaan mid bishii tobnaad baan bishii tobnaad haye hooyo magaalada ka timid ilmaheeda waaye yaa hooyo magaalada ka timid waxaan ka yimid boosaasan ka yimid hooyo ilmaha adiga ma dhalay ilmaha ha anaa dhalay haye ka wara xaaladooda hadda way fiican tahay waxba wax dhibaato ma qabaan de waxa weeyaan ilmaha iska noolooda iska bilaa waxbarasho mustaqbalkoodii waa dhumay mooyaane way iska roorooyihiin hadda iyaga wax waa la siiyaa kolley annaga se waxbana lama siiyo hooyo sidee halkan kusoo gaartay adigoo caruurtaasi wada sidee liibi ku timid waxaan ku imiday afduub baan ku imid kolkii hore yaa ku afduubtay waxay afduubtay maaragtay kuwa maaragtay waxay yidhaaheen meel baan ku geynaynaa aan maaragtay aad ka shaqaysato ood ku noolaato nolol fiican ku gasho adiyaan ku geynaynaa kadib waxayna geeyeen maxaan ku dhaayeen kadib waxayna geeyeen masar baan idingeynayna ma yidhaaheen kadib waxayna keeneen halka liibiya nagu soo shubeen markay nagu soo shubeen waxay nagu soo dulaceen waxay yidhaaheen intaasoo lacag la idinka rabaa kuwaasi xaggee idinka soo kaxeeyeen ma boosaasa idinka soo kaxeeyeen may boosaasa nagamay soo kaxaynin xaggee idinka soo kaxeeyeen annagaa ka nimid xaggee idinka soo kaxeeyeen boosaasa annagaa ka nimid kuwaas xaggee idinka soo kaxeeyeen hooyo waxay naga soo kaxeeyeen Itoobiya naga soo kaxeeyeen caruurtaada ma la hadli karaa nacam Itoobiya markay naga soo kaxeeyeen waxay yidhahdeen ma la hadli karaa oo ku dhaca la hadal deecaado dib ma la halo halo ha seeta walaal nabad walaal magaca waxaad yidhaahdaa khadra daahir xaggee ka timid qadro hooyada balse anaga hadda isaad ku hadlaysa waa hooyada aniga iyo hooyada iyo gabar kaliyo laba caruura ha ka waran noloshiina ka waran
هي إمسان اللي قربها waxaan laga rabaa nafarkiisa dad 1500 وما سنتها قبل حنوصل يقولي gabadha xanuunsana kaali hooda hello وحا إساتها ولا المفيعنتها هاي fiican wallahi ولا السيلقوها يا lagu hadlan bay xanuun jidhko dhan bay xanuunayaan marka هي واحد dhibaato lagu geystay miya jiraan oo jirdil iyo waxaasi ha walaalo bayda waa la dilaa walaal adiga xagee ka timid markaaga hore anigu Ethiopian ka imid magacaagu saddexan hoodo maxaa lagugu daraa hoodo diiri Axmed hoodo diiri Axmed marka meeqa sana joogtaa hoodo sanadiyo laba bilood hadda lugaha sidee wax ka yihiin sidee lagu hayaa bal ii sheeg lugaha marka raxminka wallaha gariisa kama socon karo xadaan siraa kacoon gariiraya gabigayga midkayga xaaladayda arkaysaa wala suuliga ma tagi karaya xitaa waa gartay الله كعافية هذا الله كعافية إن شاء الله أمد الصوماليات إيو دولة الصوماليات ودن وحن رجينا إني باقى جاران إني جاري دونا بريالك يقولي إن شاء الله هاتي وحا إيشك مقالة دي جوغان تتكن مقالة دي جوغان والله أنتي هذا يعني ماشي دوام ومشاعر كري أنا جلست هنا مال يعني صحراء وهاي ما قرتي هي هذا جوجنا يعني أن جوجنا مال صحراء وحواي ويعني ما رحت أو مقالة كذا وين واحد مقالة وما أنت نوده ولقوا مقعابي كرو ما جرت هذا دو ما سنتهي واجبا كسارن وكل دردار ما واجبا كسارن دad kaas marka la dhibaateynayo ila isku daysid inaad dhibaatada ka qafiifiso waxaad kaloo samaysaa dadka ugu daran oo abti wallahi siri aniga been kuma sheegayo waxaan sameyn karin waan sameynaa ma dhihi karo umada Soomaaliyeedna uma balan qaadi karo meeshan yani waxa iskala dad Caraba يعني أنا أيها وحبا مدامو كستا يعني وحاندا ما يعني عن سوليدا قلايو حرنما عن سوليدا كو قلايو أنا أغسو بحايو بس ما يوحكلو زيادة مداماني مركا قار بريو كان هذا مركي مادان أو يعني عرفت مرة قار يقراعان وحاجر مان تدد إيه بلانسن وأنا عددك وضو الله هذا مني لعاكتو يسودير أيان بريد دادك اسمت كميدا يعني ما ركتا عديقو سودير وايو aniga marka yani ma aragtaa u maqan yani wadada yani ayaga hadda marayaan tu ka darana anaga marnaa ma garatay waa gartay dadka caaw baxay imise gaarayaan tiradooda wallahi dadka caaw baxay ilaa iyo waxay gaarayaan 180 qofood yani ma aragtaa dadkaas dad wax haysta u banaayeen meesha kumaysan raagin ilaa iyo adiga waxay lacagtooda ku dhameeyeen adilla iyo 17 cish wax saas amal inay la joogeen dadkaas dhan oo dad lacag haysto wax meel soo dhigtay ahayn laakiin waa dadka in maanta wax loo qabtan rabo dadkan meesha fadhiya dadaya u jeedo waaye tiradooda meeqa way dadkan tiradooda maybe waxay hadda gaaraysaa ku dhawaad ilaa iyo 260 gaaraysaa dad kale oo waxa jiro oo ayagan meel kale oo ku jiro laakiin meesha hadda yani waan haleeli waa inaan tago ma garatay marka hadda 200 iyo wama zaada halkan fadhiso qofkii meeqa laga rabaa wallahi qofkiiba yani ma aragtaa lacag 8,000 intuu ku fadhiyaa waxa la sameeyaa qoladan waxay ka kala yimaadeen meelo kala duwan yani qaar Soomaaliya ka yimaadeen qaar Jigjiga ka yimaadeen qaabka ugu yimaadeenna waxay tahay ayagoo waxay tagayaan qolo yani ma aragtaa dadka soo wado qoladaas dadka soo wadaana la soo yani dadkan la soo xiriirayso waxay ku leeyihiin dad 10 qofood arabna inay idin soo dirno lacagtooda soo dirsada lacagta Liibiya laga diraa xagga markay ka qaataan يعني وحال سو غارسيا السودان markii la soo gaarsiyo qolo kala qabato hadana qolada kala lacag loo diraa waxaan meesha fadhiyo wax maanta 1000 shilin ka soo baxay oo inta jooga ma jiro dhamaantooda lacagtooda lagu bixiyay nafar walbana inta waxa lagu keenay lacag $6,000 وهاجاك adiga imisa sana joogtaa halkan imisa sana joogtaa halkan aniga sanadii 6 bil adiga maxay u bixi weyday aniga
aniga yani maaragta qaab aan ku baxo yani macnaa ma jirto maanta dadkan yani iga raja fiican qofka imaanayo lacagta dhiibanayo baxayo maanta yani maaragta waxaani asaan ku leeyahay nin asig is xukumo ma ihi waxaan ahay nin yani maaragta la xukumo oo la haysto ma garatay waa gartay maanta yani haddii lagu dhaho shaksi Soomaaliya Liibiya joogo ka shaqeeya haddii lagu dhaho shaksigaas yani maaragta niyadiisa ma ahan inuu asig uu ka shaqeeyo xoog yani maaragta qasab uu ku shaqeeyaa waxaad garatay soo ma ahan maanta shaksi Liibiya joogo oo Soomaaliya oo asiga xornimo haysta ma jiro suudaan Soomaaliya joogto oo arintan ka shaqeysata oo dadka soo wada Ethiopia sidoo kale Hargeysa Boosaaso Muqdisho waa sidoo kale soo maaha dhamaantooda sidoo kale waay وهجاج أدت محسنتهاي برامج كان فوضيسي تلفون كاجو عن كسو هلي قوسس كيشر الدباتين يي قف كم إذا قوسس كاس تلفون كاجو يسود دري هل كاسان كهلي سيدا سان كولسو حريري إلا يحال يدوم وكولسو حريري إنك سوساك تلفون كاجو قبطي وحرجينا يا وحيالها عصب يو دباتوين كان صومالي ضد كان لجوها يو ضد كاني إن الدور كاجو أتك عيارتو ودريم كلا دباتا كوجفتا حد ويكاك المغيه وفوضيسي dadka Soomaaliyeed oo dhan la socdo waxaan rajaynaynaa macquul ma tahay ugu dambeynta hadaan ku weydiiyo dadkan hadii Suudaan lagu celiyo Suudaan mu lagu celin karaa oo hadhow Suudaan in laga qaado dalkii lagu celiyo suuragal ma tahay arrinkaasi horta arrinkaas suuragal way tahay laakiin qolada haysato waxay tahay hadii yani aniga waa nidin awooda in macnaha qolada aan si tartiib ah aan u dhahooniyo barnaamijkaas jiro dadkan lacagtiina waa laga siinaa laakiin idinkana waxaan idinka doonayaa in dadkan yani maaragta oo gawaaridooda saartaan oo Suudaan ku celistaan safaarada ku sintaan hadii inta aan dhaho yani maaragta waa laga yaabaa inaan ka dhaadhici karo inkastoo yani maaragta hadda aan ku bilan qaadi karin oo waan ku sheega aan ku dhigi karin laakiin arrintaas ayagana Soomaali oo yani sidaan oo sidoo kale ayagana si xoog ah ku shaqeeya jiro qoladaas arrintan la kaashana hadii yani ay dhaan u wada sheegayna markaas oo ku sheegayna waxa jawaabtaan haween dambe ku soo siinaa bis telefoonka arrintaas la xiriirno isku day dadkaas ina ka dhaadhiciso lacagahaas oo dhan lama bixin karo waa lacago badan dadkan aad u badan yihiin lacago macquul ah oo kooban in la siiyo qolooyinka Liibiyaanka ah dadkan gawaarida in la saaro safaaradda Soomaaliya iyo Suudaan in lagu simo hadhowna Suudaan markaas ayada safaaradda ay la wareegto oo dalkii dib loogu celiyo dadkan oo sidaad u jeedo wadankooda inay ku noqdaan way rabaan marka la igu celiyo wadankooda inay ku laabtaan ma doonayaan su'aashaas ii weydii mar kale aaday oo rabaan war hadii yani maarta intan laga saaro in wadanka ku laabataan ma rabtaan dhamaantooda diyaar u yihiin maanta yani wadanka saaris iska daa maanta diyaar waxay u yihiin hal mar in qori loo soo qaato la baabi'iyo diyaar u yihiin يعني ما رأيك ديك ماشي كويس ذاك بلا هذا ضمها سنتهي هذا كاجم هاد علمية عاو وحمعني ولا لو هيا والله لبي تونك بري صوم كسعد والله العظيم نكي قالنا لو دارتاي إن أنا وقتك إن أنا لبي تونك بريبة حل سيرنا وعتاب كليج بيوم بان عباء وحكى الله سيمتر تركي في حساسية وحن شوقا سنة يصدح بلد بن شوقا تركي تسمي يقول أنتي والله ساعات كسر وحن كل حساب تما بس بالبلغسي ما دمن مسكتم بعد دمن اسمني مجرو باو سocota iyo rajab min toornay hadii dalkayga loo celiyo maanta waxaan diyaar u ahay in dalkayga ay dib ugu laabto oo waqtigiga khasaaray aan xorriyadii Liibiya laga qaaday xorriyada dalkayga dib ugu laabto xorriyadaan helo oo baasada walaalaha natiijin naga soo saara meeshan iska dhiicidiga walaalayaal hada walaalaha natiijin walaalayaal ma sanid walaal ayo ayati وما سنت ولا ماما السلام عليكم وعليكم السلام ماما هوي مقعا هوي سلمان وي سلمان ليبيا كاي متسمانو ان تليفون كجراتي هايغا غاري ولا سو خيلنا كويس
وهاجاج ولا ليال آدم ما سنتيهين واد وجدان دتك الصوماليات دبعتها هيستا دبعتها يكسو جيهين واد وجدان قبيلة يقرن وحمة رايو هاي dhibaatada haysata ku dhawaad taysan marka sidii dadkaasi loo gargaari lahaa in hooshoodii la galo haddii suuragal noqoto in la geeyo Suudaan laga fududeeyo Suudaan la geeyo Suudaan safaaradda Soomaaliyeed halkaas ay damaanad qaado ay la wareegto dalkii lagu celiyo dhalinyarada sidaad u jeedeen waxay diyaar u yihiin wadankooda in lagu celiyo ayaa ka go'an in wadankoodii lagu celiyo ayay diyaar u yihiin dad waxaa ku jiro muddo la la'aa oo qoysaskoodii nolol iyo geeri kulay meel ay joogaan la leeyahay laakiin sida muuqata yarkan telefonkiisii gabadhii shalay la garaacayay iyo labadii wiil la garaacayay mid kamid ah eheladoodii ayaa telefonkan ii soo diray xaliyo dhan la xiriirayay ilaa iyo xaliyo dhan ayaan la xiriirayay telefonku ma uusan iga qabanaynin maanta ayuu iga qabtay wuxuuna ii sheegay in barnaamijkan uu caawa uu sameynayo dadkaasi meel isugu keenayo markaan arintii u bandhigay waxyaalo badan markaan kala hadlay aan u sheegay dadka Soomaaliyeed in dhibaataysan yihiin isaga arintan magafo hala shaqeysto musiibo iyo san la shaqeysan naftiisa waxa nooga muhiimsan boqolaalkaasi Soomaaliyeed in naftoodii la badbaadiyo ayaa markaasi ayaa muhiim ah waxaad la socotiin qabyaalad inaysan waxba tareenin reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel inaysan waxba tareenin liibiyaankaasi waad u jeedaan sidii dadku u galay caruurta sida u dhibaataysan yihiin hooyooyinka sida u dhibaataysan yihiin sida u dhibaataysan yihiin gabdhaheena Soomaaliyeed hooyooyinkeena Soomaali qaarkood inay curyaameen oo lugaha ay beeleen wiilasha sida Soomaaliyeed waad u jeedeen wax ka muuqday marka waxa wanaagsan qabyaaladda in la iska dhaafo Soomaaliya isku tashato nabadgelyo